waxay dhacday horaantii bishii hore waxay ahaayeen laba dhalinyara oo reer Kenya oo iska danlaya laakiin iscaashaqay oo kala maarmi waayay muddo isku marnaayeen waxbay raadiyeen ay ku qalgalaan soo waayay waxay u tageen wadaadkii kaniisadda waxay yiraahdeen maxaa xala wuxuu yiri anaga bixinaynaa wixii dawladda hoose ay liisanka guurka iyo shahaadada guurka idinka rabtay laakiin idinku maxaad haysaan is eege midba isbaad waxba ma jiraan boqol kaliya oo lacagta Kenya oo u dhiganta $1 oo kaliya ayuu iska helay inankii caruuska ahaa waa la soo taagay dadkiiba oo kaniisaddu waa buuxdaa dadkii la hadlaa la yiri maxaa maqan baa la yiri fargaladiiba ma hayo orod buushkay dibaddu u booday farantiyo ama fargalo Soomaaliya oo xadiidu soo siiyay boqolkii shilin wadaadkii buu la yimid yiri sukaaye meheri faraha loo galiyay halkii baana xafladii ka dhacday marka meherkaas oo dhan 100 shilin oo lacag Kenya ku kacay waxa soo dhan wuxuu ku kacay 100 shilin oo kaliya oo $1 u dhiganto labadoodaba labada fargal oo kaliya waxay hanti haysteen system maxaa xigay marka waxa xigay dadkii waxa warbaahintii Kenya ayaa qaadaa dhigtay waxa la yiri waa jacayl dhaba wadada isku xiisay aan kala go'ay aan iskhiyaamaynay dabeetana social media waxaan la yiraahdo Facebook-yada iyo Twitter-rada ayaa lagu qaadaa dhigay ummadii Kenya oo dhan ayaa ka maqsuuday la dhacday sida ay isu guursadeen dabeetana waxa dhacday inay dad badan u kacaan oo yiraahdaan qoyska hal caawiyo oo hal siiyo balse uu hal isku keeno intii qaaraanka la gurayay ay bishii January dhamaatay February baynu galay iyadoo lacagtii la soo sidaa la yiri Valentine-kii baa soo socday maalintii caashaqa dunida ay muuneynayse maalinta halala sugo shalay ay haddana mar dambe aroos la yaab leh u dhacay qoyska waxa ku baxay arooskan shalay dhacay $35,000 lacag ah ajiib waa meherkii $1 ahaa ya arooskiisii wuxuu sababay in ay lacagtii noqoto arooskii dambe oo ku baxaan $35,000 ma istii malaha meherka marka hore la fududeeyay ayaa barakada keenay Cabdirsaaq absolutely taahino dambayse jaceelka noocaas Ahmed Nagaasho maxad ku tilmaami lahayd jaceelkaasi waa ka ruuxigeen malaha dhamaan Cabdirsaaq hay abwaanadeeni haddaan dib u xasuusanno jaceelka iyo caashaqadii suugaan badan baa laga tiriyay maxad ka xasuustaad Ahmed suugaan badan baa laga tiriyay Cabdirsaaq oo waliba hablaha markay amaanayaan raggii suugaanyahanka Soomaaliyeed muuqaal qurux badan iyo dhirman leh iyo ubax magoolay ayay ku sheegi jireen laakiin tii ugu la yaabka badnayd anigu ee beedka aan wali maskaxdayda ku geeyno waxa weeye manka ay dadku ku sheegayeen ee hablaha lagu cabirayay ninkii maraga u qabsaday baa jiray oo kuma aha Faysal Umar Mashtaaq baa wuxuu yiri intuu ubax dul istaagay udgoon qurux badan ayuu ku yiri Allah kugu dhaariyay ubax yahay miyaanay asli ka udgoonay ajaa'ib anna waxaan xasuustaa markii kale jaceelka la amaanayay ee la yiri kalgacaylku waa qanicaasha ka qaraweyn qiimiyo wanaag badan halistu wabaru ila laha tarinkiyo eka intimuga jacayliya hiliyo edid baanu galaaye amarale urkaad ku taala amarale oridaydi noqotay amarale ubadayatiliyo amarale udubkoodu raagaaye